السلام عليكم أصحابنا وعليكم السلام دمانتين كسر دواء channelkeena fadlan haddaadan channelka subscribe karin hayloowina channelka subscribe karaysid mar kale taas waa codsi ah haddii aadna soo boqotay fadlan ha naga noqonin aadan channelka subscribe karayn taas waa codsi insha Allah mar kale waan ka codsanaya anyway aan idin tuso maanta analyze yani maanta waa isniin toddobaadka ayaa bilowday toddobaadka waxaan idin sheegay jadwalka video dadkan hore oo la arag inuu maxaan dhahay trading aan bilaabay haddii muddo aan 10 soo dhiganay iyo waxaas yani ugu dambeyn inaan practice-kiisa ama casharkiisa bilaabay waxaan ka wadaa trade-kiisa bilaabay safarka aan bilaabay in ku tijaabinay trading-ga waxaan jeclaystay maalinta aan bilaabay inaan idinla share gareeyo ma aha maalinta aan guul ka gaaro ama meel aan gaaro ama aan profession ku noqdo waxaan jeclaystay maalinta aniga adigu wali aan isku mid nahay inaan ku tuso oon kula share gareeyo kabacdi si aad u aragto ugu dambeyn wadooyinkeena aan soo marnay step by step waxaan is waa laga fiican yahay maalintaad wax badan fahantaad iska dhacdo maalintaas aan bilaabay oo kale waxaa ka qurux badan inaad isku mar la soo bilowdo asxaabta kabacdina dadka waxaan u kala qaaday labo mid isagu aan trade-kan iyo waxaan rabin oo kabacdina raba oo kale inuu meesha fadhiyo uu fiiriyo kaas waxaan ka codsanay oo kale inuu taageero uusan iloobi channelkan subscribe gareeyo sidoo kale dadka aan channelka subscribe gareeyo ka codsanaa kamid dadka kale ayagu raba inay trade gareeyaan kaana waxaanu dhahnay ku soo dhaw fadlan aynu isla share gareeyna aan waxba kuma baraya halkan macalinku meehi inta waan ku celceliya haddaad macalimiin rabto macalimiin Soomaaliya oo wanaagsan baad heli macalimiin dad kale oo ajaanib oo wanaagsan baad heli lacagtaada ayaad dad rabto ku geli maxaan dhahaa kan online classes adigu waad raadin kartaa laakiin aniga kale halkan waxaan ku wado waxa weeyaan waan analyze gareynaya sidii arday ahaan oo kale iyo waxaan fahansanahay kabacdi taadiyo teedaan wada share gareynayna ugu dambeyn si aynu u gaarno maxaan dhahay hadaf ama aynu meel aynu isku raacsanahay laakiin anyway anigu marka aan trade gareynayo waxaan ku trade gareynayaa strategy-gayga oo mar walba idin sheegayo oo aan ku wado aan ku tijaabinayo kaagana waan rabaa inaan ogaado because inaynu trade-ka saxna un bay rabnaa waxaan trade labadina ka wada faa'iideysano anyway hadda profit-kan wuxuu marayaa $22 laba trade baan ku jiraa midna waan xiray saddexda trade waan soo wada agdhigay sababtu waxay tahay inaan idin tuso maxaan dhahaa qaabka iyo sababta aan u trade gareeyay waxaan ku jiraa let me show you labada trade aan ku jiro hadda iyo midka aan xiray waan idin kala sheegaya labada trade hadda ku jiro waa New Zealand dollar iyo Euro USD so New Zealand dollar sababta aan trade-ka u galay sell iyo kan si sell baan ku jiraa $12 maraya waa bilow sababta aan u galay sell-ka ayaan ku sheegaya sababta waxa weeyaan أنا waxaan isticmaalaa moving average markaan strategy-ga wado moving average waan inta badan isticmaalaa moving average-ka 50-100-ka kabacdi 200-kan ka wada kabacdi moving average-kaas ayaan waxaan ku lifaaqayaa strategy-yada kale sida inaad trendiga aad ogtaa meesha u socdo Fibonacci-ga aad garanaysid sida loo isticmaalo and waxaas yani marka sababta aan halkan sell oo galay xawiyaan moving average-gan dhowr jeer baa la soo tijaabiyay halkan marka aan dhigtay aniga meeshaas ayaan ka galay probably bartaas ayaan ka galay because halkan waxa weeyaan sell stop-kayga ayaa halkan waa take profit-kayga marka halkaas baan ka galay aniga halkan marka aan ka galay moving average-kaas barta uu kaga soo dhiftaan ka galay marka moving average-kan dhowr hore la soo tijaabiyay take profit-kayga waxaan ka dhigay moving average-ka weyn ee kan ka weyn halkiisa dambe ayaan ka dhigay waa meel probably hadduu halkaa gaaro yani ilaa up u soconaya aan aaminsanahay because waxa weeyaan waa moving average-ka mar maxaan dhahay laba moving average dabadiisa ayaan sii dhigay yani powerly mid kale taas waa arkayga si aan 2R u qaato probably meelahana waxaan risk gareynayo sidoo kale waxaan isticmaalayaa calculator-ka position size calculator-kan ayaan isticmaalayaa waxa weeyaan haddii aad rabto linkigiisa hoosta ayaan kusoo dhigay waxaan ku trade gareynayay tusaale New Zealand USD ama USD New Zealand yani kolba adiga beerka ka horeeya markaad trade gareynaya aad gelinaysaa and then account-gaaga lacagta ku jirta aad gelin and then maxaan dhahay risk ratio-gaaga iyo stop loss-kaaga ayaad gelin stop loss-ka inta bib aad ka dhigayso and then markaas wuxuu ku trade gareynaya waxaan ka wadaa waka account-ka beerka beer gareynaysa sidoo kale then markaas result-ga waka marka units-ka aad ku trade gareynaysid lot-ku waxa weeyaan 27 baad ku trade gareynaysaa laakiin ani weeyaan markan ayada mar aan trade-ka ku jiray aan calculator-kan isticmaalayay weeyaan result-kiisa ugu dambeeyay markaas laakiin adigu waa isticmaali kartaa waxaan oo dhan intaad ka wada saartid qaybtiisa calculator-ka ayaa tagi marka hore home-ka ayuu ku geenayaa anyway aan ku noqdo qaabka marka aan u sameeyay Euro USD-ga mid kalena waa idinku darayaa maanta scalping news baa hormaray agtayda waxaan ka wadaa anoo daawanayo hortayda maray waan qaban kari waayay because waqtiga ayaa iga dhacay hal daqiiqo ayay ku soo gaaray
kaana sababta igu dhaafay waa inii sheegay waana idin tusaya resultka ku dhamaaday xaqiiqatan inuu aad idin caawiyo ayaan rajaynaya waxa weeyaan tradekan sababta aan u galay wuxuu ahaa moving average-kayga marka uu soo tijaabiyey haddana time frame-kayga 1 hour-ka ayaan fiiriyey time frame-kayga 1 hour-ka wuxuu ii sheegayaa inuu mar isna sidoo kale uu downtrend yahay taas waxay ii dhibiraysay inaan ku kalsoonaado inuu downtrend yahay yani marka qaarkood hadduu time frame-kaaga uu downtrend ku dhaho time frame-kaaga higher time frame-kiisa markaad fiirisan uu uptrend ku dhaho valid trade ma aha kaas oo kale ayaan ani aaminsanahay laakiin adiga waa laga yaabaa inaad adiga kaas oo kale guulaysataba laakiin kaas oo kale waan ka baxaa sababta waxa weeyaan because baa isdiidanba yani dhinacna uma socdo ma garan kartid so in that case waan ka baxaa marka moving average-kayga iyo saad aragto bahalkan waxaan range downtrend usoo socda ayuu ahaa consolidation buu galay ilaa intaas macnaha marketku and then dhowr jeer horena maadaama uu isoo tijaabiyey downtrend range-ga waxaan usoo trendi garanayaa downtrend inta badan sell marka meelahaas buu marayay probably markaan aniga halkaas sell limit baan usoo galay marka sell limit-kayga aan galay wuu bilowday hadda halkaas buu marayaa profitkana wuxuu marayaa I think New Zealand dollar as you can see $9 ayaan u malaynaya no USD waa $6 buu marayaa waa bilow asagana right so sababta aan trade taas bay ahayd adi haddii aad maxaa wax kale hadda aad aragtin meeshan ka muuqdo aan arkin waad ii sheegi kartaa adigoo ay tilmaamaya haddaad rabto waxaad toos u aadi kartaa chartiga markaan isticmaalay waqtigu waxa weeyaan waa 27 bishii koowaad 2020 weeyaan saacadana waa intaas marka toos waqtiga u aad waad fiirin kartaa chartiga oo analyze gareyn kartaa waxaanan arkin dad aragto fadlan igu caawi because future-ka dambe ayay caawinaysaa aan aado New Zealand dollar so New Zealand USD New Zealand dollar ka asagana halkaas ayaan ka trade gareeyay stop loss-kaygana waa halkaas waxaan daba dhigay asagana moving average 50-ga sababta aan trade-kan u sameeyay wuxuu ahaa trade-kan very strong buu yahaa يعني dhowr jeer ayuu maxaan dhahay sell kasoo galgalay bartaa uu ka noqnoqday at the same time waa lasoo tijaabiyey and higher time frame-kiisa markaan eego isna sidoo kale downtrend buu ii sheegay inuu yahay as you can see downtrend buu ii sheegay yani inuu 250.18 ayaan isticmaalayaa bahalkii moving average-kayga standard deviation-kiisa saana numberada adigo aad bedelin kartaa yani marka ana hadda numberkan isticmaalayo 250 midaas waa mid kale maxaan dhahay meesha uu ka noqonayo oo kale waxaad ka raadinaysaa bahashi line-kii oo kale supportiga aha so line-ka supportiga adigu waad fiirini kartaa line-ka supportigaaga inuu ama resistigaaga inuu dhowr jeer lasoo tijaabiyey ay ku dhibiraynayso inuu maxaan dhahay ay ad ku adkaato in oo line-kan yahay mid downtrend ah si ay taas kugu soo noqoto at the same time waxaad isticmaalaysaa Fibonacci marka ani xataa markaan isticmaalay Fibonacci-gayga wuxuu ii sheegay let me say bartan aan ka bilaabo yeah so probably meelahaas ayay ahayd baan jeclaa let me show you an caadi buu kugu soo tuso so let me start from there yeah and let me say this is my highest Fibonacci and halkan do this is my higher because saxaabta waxaan ku qancinayaa sababtayda si aad tayada intaad fahanto marka aad igu sheegto taada iyo waxa iga khaldanani yeah so bartu hadda ka noqday 0.5 ka oo maxaan dhahay uusan weli gaarin maxaan dhahay 618 ka oo asagu number golden ratio ah intuusan gaarin reaction buu ku sameeyay u dhow right out there probably meelahaas oo kale ayuu reaction ku sameeyay hadda falaadheeda taalo so siyaabaha sababta aan u doortay bay ahayd inuu dhaafi karin waan aaminsanaa because 615 ku 618 uu ka sareeyay laakiin sidaa darteed baan take profit xanka stop loss-kayga daba dhigay moving average-ka weyn aan daba dhigay so weli in badan dhaafinay lahaa halka waxaan aaminsanahay trendigan inuu hoos u soconayo waa New Zealand dollar weli hadda wuxuu marayaa $10 buu marayaa asaga marka qaabkaas sababtaas ayay ahayd sababta aan trade-ka asagana aan ooga dhigay maxaan dhahaa downtrend ugu galay insha Allah inaad fahantay ayaan jeclahay sidoo kale meeshan markale waxaan ku leeyahay macallimi
fadlan hay u khaldamin marka aan ku leeyahay maad fahantay waxa weeyaan aniga sababteeda aan saa u galay ma fahantay adi taada ii sheeg markaas tamo commentiga la wadaag fadlan GBP Japan isaga waan ka baxay tradekiisa tag profitkayga ma gaarin laakiin waan iska xiray meesha markuu maray dhowr jeer hor maadaama uu ka noqday ayaan iska xiray halkaa uu ka noqday and then halkan uu ka noqday again halkanna uu ka noqday so hadda saa arkaysin dib inuu u noqonayo ii sheegay laakiin waxaan weli aaminsan in hoos soo dhaadhici karo laakiin trade-ka waan ka baxay aan ku tuso trade-kaas inta uu marayo intaan kaga baxay take profit-kayga let me go back and check my day yeah waxaan kaga baxay $58 $58 baan kaga baxay trade-kaas so as you can see trade-kaas $58 aan kaga baxay waxay ahayd from there probably wax yar kor u kacay bay ahayd from there line-kaas aad arkaysid weeyaan line-ka aan ka trade gareeyay so pointigan ilaa halkan buu soo socday marka ani stop loss-kayga xataa wuu u dhawaaday laakiin stop loss 16 pips away buu ahaa bay leeyahayd let me show you stop loss-kayga inta aan ka dhigay because sometimes stop loss-kaaga waa inaad 2 alif to ka dhigtid to and I mean 8 to 2 alif laakiin hadduu GBP inta badan beerka GBP hadduu ku jiro waxaad inta badan u badin inaad 2 alif ka dhigto oo kale stop loss-kaaga laakiin mar walba adiga aarka aad stop loss-ka aad yani inta aad rabto inaad lose karayso double-keeda waa inaad faa'iidi karto yani marka ani aarkayga ugu yaraan waa inuu yahay faa'iidadaydu 1.5 r hadduu yahay losing-kayga r bas hata marka istaraatiijiyadaasaan ani isticmaalaa asxaabay I think was Asia 16 probably 22 halkaas ka bilow marka ani take profit-kayga muxuu yahay 34 c 1.5 buu noqonayaa marka yani still waxa aan ugu talagelayo inaan khasaariyo waa inaan ama double-keeda ama isagoo half dhiman aan faa'iidayo so waxaad moodaa inuu sidan u dhaqaaqay waana ka baxay laakiin wuu u dhawaaday inuu soo hit gareeyo uu soo noqday dan uu noqday again ugu dambeyn halkaas buu isoo gaar bartaas baan kaga baxay marka ani waana wuxuu marayay $58 so trade-ka hadda aan ku jiro oo ah maxaan dhahaa USD Euro USD iyo New Zealand USD laba ayaga waxa weeyaan pending order weeyaan weli lama gaarin meeshooda waxa weeyaan waxay kala marayaan 14.58 yani $14 iyo $4 bay kala marayaan sababtan asxaabi waan idin la wadaagay so waxaan rabaa inaan maanta scalping newska kuwa strategy-ga and trade gareeyo wallahi maanta fursad wanaagsan baa jirtay and because mar walba newska inaad eegto newsku waa very يعني marka loo yimaado profitka iyaga profit fiican wato marka qaarkood because waxaan maanta intusayaa newskan oo ku talagalay isniinta maanta 27 bisha ahayd 12 ayuu ahaa newskaas euro ayuu dhacay newskaas inta badan newska eurada German info manaaminka ama trade gareey laakiin bal maanta tijaabi aan siri trade-kana sida uu noqdo because sometimes trade-yada barkood information-ka waxaan kala newska marka event-ga maanta jira halaga inuu awoodiisa aysan gaari karin meesha laga yaabo inaad adiga target price-kaaga u yahay sometimes inuusan gaarin ma laga yaaba kuwa gaarayo kale waxaa kamid ah aniga trade gareeyo kale markaan tago Canadian-ka aan tago ama USD-ga CB-ga oo kale iyo Canadian-ka asagana let me show you Canadian-ka aan arkay inay aad u gaaraan meelahaas let me show you Canadian-ka maalintan ma ahan probably jimcaha jimcaha waa kana GDP so trade-daasan jeclahay Canadian-ka so markaas inaad la trade gareyso sheeg trade-kaas aad marka USD Canadian aad trade gareyso sidoo kale haddii USD yahay oo event-igu soo baxayna waxaan jeclahay inaan marka USD trade gareeyo laakiin anyway information-kan ayaa tusaa 12 doornimo maanta wuxuu ahaa USD beariska ayuu ahaa marka aniga aan ku dayay USD waxaan ku keenayaa Euro USD aan ku geyn and then 12 doornimo maanta eeg waxa dhacay so 12 doornimo 1 minute ka itag by the way 1 minute candle-ka and 12 doornimo 12 doornimo waa kana trade-kaas dhacay suu dheeriya ma aragtaa yani waxa weyn very profitable halkaas buu ka soo bilowday somewhere meelahaas ayuu ahaa marka waxa weeyaan hore uma trade gareyn jirin event-gaas meesha ku qorna marka maanta tijaabo ayaan iri hortayda bal ha maro 1 minute buu ilaa 59 second buu socdaa so 59 second baan sugayay waa kana markiiba hoos buu kaga soo noqday dib uu go'ay laakiin markuu meelaha soo gaaray again dib buu u kacay
linekaas dib buu u kacay then markaas baan isiriniyo malaha linkan waa fake haddana again hoos wallahi halkaas buu tagayba line very profitable ayuu noqday hadda wixii ka dambeeya waa laga yaabaa inaan isku dayo inaan trade gareeyo because trade-yada noocan oo kale waa trade-yada ugu fiican ee trade gareyn karto sinaba kugu khasaarin karin inta badan yani 95% kuma khasaaraysid trade-kan because waxaad trade gareynaysa waa labada dhinacba and I will show you sababta iyo waygaas insha Allah haddii aad u aragto muhiim weeyaan labada dhinac trade-kiisa macnuhu tahay haddii jawaabtu yes iyo no tahay lagu siiyay inaad ku jawaabto haddaad yes iyo no ku jawaabi kartid yani ta khaladka iyo ta saxda aad qaadato mid unbay kugu dhici bay ka dhigan tahay marka waygaas waan idin tusi doonaa insha Allah way aan wanaagsan haddii aad u baahan tahay weeyaan because waxaan u maleeyaa in waxaan aan sheegay aad u muhiim ahayn waan iska dhaafinaa waqti ku lumin mayno laga yaabo inaad taqaano aad ku trade gareyso marka asxaabi maanta intaas baa idin wadaagaya insha Allah position size ka calculator-ka aan isticmaalo waa kan aan ku calculate gareynayo position size ka waxaan idin soo dhigay bahalkiisa linkigiisa waxaan idin soo dhigay insha Allah hoosta description-ka calculator-kiisa beariskaad gelin lacagta qiimaha kugu jira aad gelin risk ratio-gaaga aad gelin aad percentage-ka luminayso so ani 2% baan ayaan ugu talagalay and then bibskayga kor intaa markaa bibska aan AUD USD oo bending beariska ku jira markaas 16 ayuu ahaa and then marka lotska aad ku trade gareynayso resultiga hoosta ku soo dhigay as you can see halkan marka insha Allah qaabkaan u isticmaalo waa sida marka dhamaantii waxaan idin rajaynayaa khayr fadlan asxaab mar kale haddii aadan channelka subscribe gareyn ha iloobin inaad subscribe gareysid taas waa codsi insha Allah sarag dambe